السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan jeclahay inaan soo gudbiyo cashir yar oo ku saabsan Java language. Java language waa language kamid ah programming language la isticmaalo sida C#, C++, C language, so on. Whenever markaad rabtid inaad create garaysid first application kaaga waa in markaas badanaa macnaha maxaa ayna isticmaashid Eclipse waxa la dhaho. Eclipse ina waxa ujeeda animation. Eclipse qaabka sida loo install gareeyo sida markaas loo muxuu u baahan yahay Eclipse kaligiis ma baahna, wuxuu u baahan yahay Java setup ama Java, so sida loo install gareeyo insha Allah taala xil kale aan sheegi doona. marka Eclipse aad joogtid waxaa maskaxda ku haysaa anytime aad create gareynaysid application waxaa ku create gareyn Eclipse dhexdiisa. Okay, Eclipse dhexdeeda marka always inside waxaa ku jiro waxa waaye project waaye. whenever aad rabtid inaad create gareysid tusaalaan oo kale waxaan ku dhuftay Eclipse, markaan ku dhuftay waxay soo baxaya platformka inaan ku kor kareeyo arago. So marka rabtid inaad macnaha first time ka create gareynaysid macnaha muxuu ahaa application ka you have to create gareysid project. sababta waxay keenaysaa waxay tahay without creation project console application ka waxba kuma qori kartid. That's why waxaa kaloo ogna waxay tahay Java language waa little bit complicated as compared to the other languages. waxaa laga yaabaa one single line in markaas uu noqdo macnaha maxaa ku kor gareysid ama uu u taagaya macna badan. So waxaan dhahay first time you have to create gareysid muxuu ahaa project. waxaa tagay file, then waxaa leedahay new markaa tiraa Java project ka leedahay. Java project markaa joogto waxaa create gareynaya folder project-ga markaad sameynaysid. So folder project-ga aan sameynayo waxaan dhahay tusaalaan oo kale mahad tusaalaan oo kale aan dhahay waxaan dhahay next. meesha waxaa ujeedaa waxay tahay source src waa source muxuu waa source code-ka ama aan qorayno inaan qorno arab insha Allah taala haduu leeyahay. waxaa kaloo ujeednaa meeshan ugu jeednaa waxay tahay mahad bin. waa maxay bin waxa waaye folder-kan waxaa lagu create gareeyaa ama create gareynaa output binary-gaaga macnaha file-ka aad create gareynaysid output-ka hadhowta kusoo baxayo file-ka uu ku jiro waxaa la yihahdaa bin. waxaa kaloo jiro another file laakiin file-kaas wuxuu ku default ahaan wuxuu ku yahay Eclipse uu ku yahay. Okay, every Java application waxaa lagu build gareeyaa inside class-ka lagu build gareeyaa. maskaxda inaad ku heshid aan class-kaas oo lagu build gareynayo waxaa kale ogaataa that is why ay uga duwan tahay other languages-ka. maxaa dhahay every Java application waxaa lagu build gareeyaa inside class-ka lagu build gareeyaa. So other language-ka program language saas ma. Okay, waxaa ognaa marka in Java waxaa ognahay everything waxa waaye objective. Okay, objective waxaa laga create gareey from class. Okay, whenever aad rabtid class-ka inaad create gareysid it should be inuu noqdo upper class. Okay, waxaa kaloo ognahay waxaa naloo fududeeyey tusaalaan click markaan finish markaan dhaho waxaa ii soo baxaya mahadaan sameynay. waxaan rabaa inaan sameeyo our main class. waxaan dhahay right click kadib waxaan dhahay class. waxaa ogaataa whenever I main class-ka aad create gareynaysid it should be inuu ahaado upper case ama inuu noqdo xarafka koowaad inuu xaraf weyn uu ka bilaabo. waxaan sameynaynaa marka main mahad. Okay, waa in halkan jeg aad saartid public static void. waa maxay public static void ayadana waan sheegi doonaa. kadib waxaan dhahay finish. So waxaa ii soo baxay okay
maxay dhahay first marka create gareynaysid classka create gareynaysid you have to inuu markaas macnaha muxuu ahaa inuu uppercase noqdo waa iska delete gareynaa waxaan remove aan leeyahay inta direct saan u delete gareyn kartaa direct waxaan sameyn kartaa ama calaamadaas aan ku siinay double click ku siinay click marka ku siiyo waxa ku soo remove task marka ku dhuftid okay now waxaan rabaa inaan delete gareeyo okay intaan delete gareyn ka hor meeshan aan u jeedno oo bracket kan aan public inta u dhaxayso waxaa lagu create gareeyaa methodska functionska sometimes functionska automatically oo call gareeya okay waxaa ognahay waa maxay public maxay tahay public waxa waaye means waxaa la yiraahdaa errorkan hoos aan dhigno public waxaa la yiraahdaa means methodska can be called from anywhere public method macnaha meel walba ayaa lagu kala gareyn karaa waxa inverse ku ah private ka so private ka marka gaar insha Allah ta'ala ana idin sheegi doono waxaa jiro waxa la static waa kana static maxay tahay means you don't have to create instance of class ma create gareynaysid instance of class ana object of class macnaha ma create gareynaysid waa okay waa maxay void maxay tahay void waxa waaye waxa loola jeedaa waxay tahay return value ma u celinaysid value ama ma u return gareynaysid from class ka ma return gareynaysid waa gartaa marina okay waa maxay main string and arguments okay main waxa waaye waxa lagu call gareeyaa main methodska wuxuuna leeyahay syntaxka oo la dhaho string oo ku xigto open bracket and close bracket waxaan ognahay variable-ka ee markaas loo isticmaalo ama variable-ka oo wuxuu ku yahay default ahaan set in Eclipse meeshan bracket-kaas wax ku dhex jiro xitaa variable-ka ama variable-ka dhowti markaa isticmaalaysid ama argument aad gudbinaysid meesha markaas default-ga uu ku noqonayo string-ga dhexdiisa waxaa kaloo la dhahay waxaa la dhihi karaa ama ogaan karnaa any platform ka salaano kale marka computer kan aan ku rangareeyo program rabo inaad ku qaato USB aad whatever rabto computer kale inaad gelisid oo kale waxay u baahan tahay another platform to another waxa laga yaabaa inay isbedesho karo kartaa so okay waxa ogna marka waa maxay marka argumentiska waxa uu jeednaa waxay tahay waxa uu macnaha muxuu ahaay waa bracket kaas markaas macnaha muxuu ahaa iyo argumentiska maxay tahay okay horta waxaa loola jeedaa waxay tahay argumentiska waxaa la array la karaa maadaama array la karo waxaa order collection salaano kale markaas meeni sidoo kale array maxaa loo isticmaalaa kale waxaa loo isticmaalaa kale markaa rabtid inaad list aad samaysid sidoo kale salaano kale dadka inaad tiraa Cabdullaahi Cabdi markaa tiraa Cabdiraxmaan markaa rabtid maas order collection markaa sameeyay sidoo kale ama markaa create gareynayso salaano kale waxaa loo isticmaali karo kale dad asmeeyay sidoo kale any system application oo kale salaano kale console application markaa isticmaali sidoo kale la isticmaali karaa okay intaas markaa joogno xitaa waxaan rabaa inaan laftigeeda idin sheego wax yar oo ku saabsan second option ka maxay tahay second option ka waxay tahay system dot out dot print nl bracket double column waxaa ku qoray hello okay intaas aan sameyn waxaa rabaa wax yar oo hordhac inaan idin sheego oo khuseeyo markaas macnaha muxuu ahaay maxay tahay system maxay qabataa out maxay qabataa print maxay qabataa okay aan delete gareeyo dib u celiyo okay system kaliya ku edka system dad marka dhaw system horta maxay tahay system waxa waaye waa java class waxaana kamid tahay part of waxa waaye java class library okay java class library maxay tahay salaano kale markaa sameynaysid any method oo kale arabtid inaad samaysid oo kale marka insha Allah ta'ala marka gaarno java graphic utility interface oo kale marka isticmaalaysid you have to make a library okay so waxa kale second option waxay tahay out aan dhahay out markaan dhahay out maxaa marka out waxay tahay waxay representative ka tahay objectiga ay arabtid inaad implement inaa markaas
print aad garaysid ama aad rabtid inaad print out ku samaysid ayaa waxay representative u tahay. Okay, dot markaan dhaho print ln intaan dhigto waxaa dhadaan dhahay waxaa ii soo baxay markaa print aan dhaho waxaa ii soo baxayso inta markaas related kala ah ee functionka ee related kala ah out. maxaa lahay listigan kusoo baxaya waa functionska partiga ka ah print stringiga. print arabto outkan waxay u taagneed print string. print maxaa saan markaa rabtid inaad gelisid Soomaali ahaan oo laato kale markaa rabtid inaad gelisid. so print stringigaas string maxay tahay? string waxa isku saan Soomaaliya string waa tirada magaca string waa. okay, functionska marka inta ka soo baxayo kale waxay macnaha muxuu ahaa waa part function waa part of the waxa la print string name waxa la out. so midkajol waxaan rabnaa marka intaan oo function maadaama related out ay la tahay waxaan ka qaadanaynaa ka print ln ka qaadanayna. print ln marka ka qaadano double bracket kadib laba dhibic dhexda marka waxaan ku qoraa tusaalahan oo kale maadaama string ay tahay labadan dhibic inta markay jirto iyo labadan dhibic inta markay jira waxa ogaanay masti waxaan idin ku haysaa ama qalbiga ku haysaa inay tahay string waxaas aad qoraysid. okay, Soomaaliya dhahay Soomaali marka dhoo meeshan still wuxuu qoraa waxay tahay error. why? because statementkii ilaa hadda ma la xirin. okay, maadaama marka statementkii ilaa hadda aad xirin you have to statementka aad xirtid oo simka aad tira macnaha muxuu ahaa soo xirtid. okay, maxay tahay marka semicolonkaas muxuu faa'iideynaa? semicolonkaas wuxuu faa'iideynaa waxay tahay statementkaas waxaa ogna ingiriiska marka soo dhiganaynayo kale taana kale marka paragraph ka qortid oo kale qasab waxay tahay inaad semicolonkaas aad qortid. so java waxa waaye must waxaan dhahay save. after that marka save waxaan leeyahay F11 taabana F11 ama waxaan leeyahay calaamadaas guduudka ran marka dhaw waxa ii soo baxay Soomaaliya noolaato. okay, meeshan waxaan rabaa inaan ka bedelo Soomaaliya waxaan ku ku daraa rabaa inay noolaato Soomaaliya noolaato marka ku daraa waxay tahay save aan dhahay ama waxaan leeyahay control s waxaan dhahay F11 ama whatever aragtid ama waxaad dhigi kartaa oo kale ranna ka taaban kartaa. waxaa ku soo baxday markaas macnaha muxuu ahaa Soomaaliya noolaato. inta waxaan kusoo gabagabeynaa insha Allah tacaala haddii la raado cashirka ugu horeeya ee ku saabsan javascript waxaana ogaataa insha Allah tacaala haddii la raado in markaas aan kusoo xuji doono in markaas aad print garaysid tusaalahan oo kale adoo adeegsanaysid oo arguments ama adoo adeegsanaysid tusaalahan oo kale adoo inaad print garaysid oo kale tusaalahan kale for loop waxaa tahay inaa conditionska statementska inaa samaysid oo kale markaa rabtid oo kale tusaalahan oo kale markaa rabtid inaad samaysid array programming markaa samaynaysid code ku saabsan array string point while exception handle markaa rabtid inaad samaysid oo kale all these stuff insha Allah tacaala haddii la raado waxaan jeclahay in markaa step by step aniga kulleyta waxaan jeclahay ma aha waxaan rabaa inaan improve gareeyo laftigayga how much I know in Java language. waxaan jeclahay insha Allah tacaala dadka ay dhibayso laftigayga maadaama aan laftigayga ay dhibayso kale inaan la share gareeyo si markaas ayagana ugu faa'iideystaan aniga uga faa'iideystaan insha Allah tacaala bilaabay. waa mahadsantihiin. السلام عليكم.